الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahey dhammaantiin meel kasta aad joogtaan ii soo dhawaada. meeshaan aad iga fiirsanaysaan waa janalkayga Aamina Shiiquna, anigana waa Aamina Shiiquna. maanta waxaan idin wadaa horta jimca wanaagsan marka hore إلهي سبحانه وتعالى جمعدان خير كذا يبرواق ذي ساعة الإجابة ذا هنوافج بإذن الله آمين يا رب العالمين. أنتي حنونسن أنتي دباتيسن وما أنت مروق يدب يماش ودونا كإما دواق وقبري إلهي سبحانه وتعالى قبلك وقمري ذو دباتداس يقربدا سيسته اللهم آمين. ما أنت واحد ذي وذا أم أنو وذا قصوينكي أتجعلدين سورة البقرة وما أركتي ما شاء الله يبركذي وما أدراك ما سورة البقرة. والله العظيم أنا وحامي سنة سورة البقرة هدان فهنسنة هاي سيدة أيتهاي يعني ساعدا حنون بمنقدم بين لنا أملينا أنا هدوان أقرياء أساس أيتهاينا وحير با لكن وحلا الشيء ما هيا إنسان كواكنا أبال ملك اللهم لك الحمد وحلا الشيء معها وحي نواقبتي وقرصون إلهي أوجه وحن أنا أوجنا وحلا حسابي كرمها الحمد لله. ولا ليال وحاد عذي gabadhan aan maanta ka sheekeyn rabo sheekada ayada ka sheekeynayso waxay leedahay aniga waan xanuunsaday oo arin waxay tiri qof walba insaan waxa soo marto dhibaatooyin soo maro dhibaatooyinkaasna waxay sababaan tiri murugo iyo dhibaato qofka u sababaan tiri marka xaaladahaas xaalad kamid ah ayaa waxay tiri waxay igelisay tiri aniga xaalad adag igelisay tiri xaalad soo marta ii sababtay dhibaatadan igu dhacday oo aan ka sheekeynay maanta waxay tiri walaalayaal aniga oo dhan waxay tiri si tartiib horta xanuunka ii soo galay oo waxaan arkayay tiri anigoo isbedelayo oo maalinba maalinka ka dambayso jismigayga maskaxdayda ruuxdayda oo isbedelayso waxaa dhacday tiri in xanuun uu igu dhaco xanuunkaas oo jirkayga oo dhan hareeyay oo jirka oo dhan u xanuunayo tin iyo cirib waxay tiri kalarka wajigayga xataa waa isbedelay subxaan allah waxay tiri wax walba waa laygu dayay tiri maalinba maalinka ka dambayso waxay tiri howlgabaan soo noqonayay tiri sariirtaan ku aruurayay tiri wax ma qabsan kariyay tiri meel ma aadi kari wax ma samaysan kari waa daala xanuun aan waxay tiri yani xanuun wax aan ku tilmaamo aanan garanaynin uu ahaayay tiri kaas oo jismiga oo dhan xanuunayo waxa u malaysay tiri masaamiir in layga taaga u malaysay tiri oo korkeyga kadibna koronto lagu shidaayo xanuunka ololka rafaadka dabcan qofka ibn aadamka markuu xanuunka saas u haayo wax ma qabsan karo niyadu way dhimanaysaa maskaxdii waxay noqonaysaa maskax maanta oo dhan oo rabto in xanuunkan intuu ka imaana ay leedahay dagaalamaysaa ay leedahay bal haddii jismiga xanuunkan maanta oo dhan waxbay kugu shidaysaa waxbay kugu sheegaysaa anaga mashiinaan ugu rakibna anaga aqyaasi karin fa subxaana allahi waxa waaye fatabaaraka allahu axsanu alkhaaliqiin allahuma laka alxamdu. marka waxay tiri xaaladaas markaan ku suganahay tiri ogaada gabadhan waxay tiri aniga suuratu baqara aqrinayay tiri markaas laakiin waxaan ka aqrinayay 10 safxaan ka aqrinayay oo ah 5 baga u maleynaa maalintii 10 safxa ayay ka aqrinaysay oo waxay tiri wardiye ii ahayd oo maalin la ah waxay tiri alxamdulillah li'anna aniga suuratu baqara waxay tiri waxaan ku xifdiyay tiri yaraanteeda iskoolkan ku xifdiyay waxa waa iskoolada oo carabta quraanka iyo waa la isku dhigaa walaalayaal iyo diiniga iyo maadiga waa la isku dhigaa ilaa kuwa ma aragtay oo kor u kaadiyay maan dhahaahe oo lacagta intay ka badatay oo iskool maadi dadka maadi ka daba cararama sheegin oo iskoolada maadiga ingiriiska iyo ma aragtay waxaas aan macnaha lahayn dadku ilmaha geysto marka waxay tiri galaaska afraad ilaa galaaska shanaad u dhaxaysan suuratu baqara waxay tiri xifdiye oo xifdisana laakiin waxay tiri kaali maalin aqri ayadoo dhan ugu soo dhixin tiri xanuunkiina waa kula noolahay tiri ani dhibaatadii ay haysato waxaa dhacday tiri maalin maalmaha ka mid ah anigii hooyadee israacnay dhakhtaraan tagnay dhakhtarkii wuxuu igu yiri waa lagu baarayaa oo dhiigagaaga la baaraa iyo jismigaaga oo dhan baaritaan guud iyo mid gaarba waa lay baaray tiri dhiigayga markii la baaray waxaa layga helay tiri talayuf alcadalaat xanuun la dhahayo aa layga helay tiri waxaa way maanta dhan aan baaray waqtigu iga qaaday aad iyo aad waqtiga igaaga qaaday oo waxaan rabay inaan magaciisa rasmiga helo talayuf alcadalaat waxaa waaye haddaan si sax u dhahay waaya haddaan si sax u dhihina dadka carabiga yaqaano ha iga soo saxaan cudur waxay tiri oo murqaha ku dhaca waayaa la dhahay
oo waxaana keeno qofka markii uu xaalad stress ah uu galo xaalad nafsi ah markuu galo ayay murqaha sidaas noqdaan siday noqonayaan murqaha way kooleesmayaan oo way aruurayaan annaga abu muruq leeba kii la dhahay uu yahay bahe walaalayaalo muruq waa umaleynaa waa baaray sawiradii wax waa arkay fiidiyoyaal dhaqaatiir ka sheekeyna arkay waqti badan oo iga soo qaatay maanta magacaas haddaan baaray waxay noqotay xanuuno waaye oo kan ugu daran wuxuu ku dhacaa yacni muruqaas halkaas maraayo iyo xididkaas bartaas muruqa ku jiro aniib i xanuuntaabo garabka hoostiisa feertaan ilaa i gadaal surka xididka bahalka aado ii sheeg muruqa iyo xididka meeshaas aado waxaa waaye xanuun fiican maaha aniga hadda way xanuunaan meelahaas oo dhan maanta anaaba horta qisooyinkan baaritaankooda subxaan allahi waxyaabo badana lagu arkaa oo aniga maanta xanuunkii ahaa afcari wax lagu dhahaan ogaadayba ilaahay subxaanahu watacaala aniga inta islaam wadina maxmed ha naga najiyo walaalayaal aniga hadda xanuunka waan ka roonahay laakiin maalmo gabadha waxaan u malaynaa inay iga sheekeynayso wallahi alcadiim laakiin marka aada aqoonin waa dhibaato wallahi billaah waxa i soo mari jiray oohin aan ku dhammaystay 1 sano kaamil ah waa oon jiray laga bilaabo waaga markuu saas u bariyo xanuunkii i qabto wax ma qabsan kari ma neefsan kari xanuuna maantana igu dhagan isriix banooni isku riix wax walba isku samey markaasaa xanuunka intuu iga bato ama waxaan samayn jiray wax walboo macaan iyo wax walboo faadaa cuni jiray stresska magtiisu dadka yeelaay waa cayila haddaan ku dhahay laa ilaaha illaa anta subxaanak ilaahu noo gargaar gabadhaas maanta xanuunkay ka sheekeynaysa waa xanuunkaani ala noolaada wallahi alcadiim alxamdulilah hadda waan fiicanahay waan roonahay aadaa uga fiicanahay oo maba rafaado maba ooyaba xanuun wuu iska kayhayaa neeftu way dhibtaa xataa markaa videoga duwaa mararka qaar waa layga dareemayaa laakiin alxamdulilah siba sii karoon tahay intaas yartaana waa ka caafimaadi doonaa gabadhii waxay tiri dhakhtarkii markaa u tagnay xanuunkii oo noo sharxay waxaa la isoo siiyey tiri daawooyin iyo waxaa la isoo siiyey tiri mashiino wallaahi bilaahi subxaana allahi dadka qofka xanuunka markuu ku dhaco wuu fahmi karaa qalbiga ay gubanayo maanta aniga markaan gabadhaas dhegeysanayay ilaahay kuma soo celi ilaahay wuu ka qaaday alxamdulilah nihaa'iyan uu ilaahay ka qaaday alxamdulilah kadib waxay tiri daawooyinaa la isoo siiyey tiri ma seexanaynay tiri no ani hurdo male harsasho male hooyaad male wax ma cunaay daawooyinka markii la isoo siiyey tiri habeenkii ugu horreysay markaan cunay tiri daawooyinkii horta habeenkii ugu horreeyay tiri oo aan seexday uu noqday tiri habeenkaas laakiin maxaa ka dambeeyey tiri daawadii waxay noqotay daawo noloshayda baabi'isa damarat xayaati ay dhahday gabadhaas damaar waxaa waaye xayaatadeeda way qaribantay way kasii shishaysaa waa wax kasii fog yacni way baabi'isay way dumisay waaye nolosheedao dhan wuxuu isoo siiyey tiri jihaas ilkaharabaat wuxuu isoo siiyey tiri mashiino oo murqaha lagu dhajina anigba ii yaalaan oo wuxuu isoo siiyey tiri wallahi waxaasoo dhan daqiiqadii yar una xanuunka maaragta kaa fujaan maana waxtaas kuu sii caawinaya maaha horta waxaa waaye daawada min allahi waaye ilaahi subxaana watacaala daawadeena hana waafajiyo aamiin yaa rab alcaalamiin waxay tiri waxaa igu dhacday tiri daawadii markaan cunay waa seexday carba soo kacay tiri salaada ilaahay waxay tiri silca ku tukanay tiri hunkurin iskaba dhaafay tiri anoo afka qaandasas ugu siiyaan sii seexanay tiri markaa waxay tiri muddo ku jiray tiri xaaladda 3 bilood ah waxay tiri intaa maanta dhan jiiftid oo kici karin ila nololaa leedahay adduunyaa leedahay masaasaa ku jiraysaa xal kale ina raadisid waa sax dadku waxay leeyihiin tiri war daawadan iska daa dadku waa ogtahay markaad jiran tahay 100 qof wuxuu kuu sheegay daawadan iska dhaaf muku anfacayso noloshaada inay baabiso waxay tiri laakiin xanuunka aniga hay tiri daawada ma dhaafi karo waa u baahana haddana saas waxay tiri cuduro waxay igu riday tiri oo aad iyo aad u xun igu sii riday tiri oo yacni oon horey u qabinay igu sii dartay tiri nolosheeda dhan ay baabisay daawadii marka waxay tiri xaalkaas markaan taaganahay tiri waxaan bilaaway tiri xanuunkii ahaayo maxaa lagu daaweynaa inaan internetkan galay dhahday markaa internetka galay waxaan arkay dhahday dad ka sheekeynayo culimaa iyo dad badan oo waxay tiri oo macnaha ilaahay ku caafiyey oo suuratulbaqara barakadeeda ilaahay subxaana watacaala ugu gargaaray aan arkay tiri oo dhahayo suuratulbaqara aqri xanuun walba ilaahay subxaana watacaala waa kaaga qaadaane markaas waxay tiri waa aqriya laakiin waxyara ka aqriya ومن أقريت تري يعني فإذا سينا لهذا أيضا حتى فهمك شيء قالي واي إن يد وحانكو أن سيدي ترينا داودي فراك قادن سورة البقرة أقريو سورة البقرة بلاوي ترينا أن أقريو أيضا أيضا كامل عد يرانكو أقريناي ونيد أن يسناي إنو إلهي سبحانه وتعالى يقداوي وحنونك إلهي سبحانه وتعالى إيقاق قادن وحي تري
سورة البقرة markaa bilaaway tiri xanuunka waa igu ziyaaday oo ziyaado igu noqday oo tacbaanaan sii noqday bal waxaa igu dhacay tiri cabsi iyo khalqala igu dhacay tiri waswaaska igu batay tiri arrinkaas waa muhiim jiddan aniga xataa waan u arkaa arrinkaas in laga sheekeeyo ma jeclaynay tiri inaan ka sheekeeyo laakiin waan idinkaga sheekeyna sababtoo ah waxay tiri suuratul baqara markaa bilowday waxaa laga yaabaa inay xaaladaas kula soo gudboonaadaan si aad macluumaad u haysatid ay tiri oodan u yaabin oo u walwalin la soco waxay tiri waxaa igu batay tiri walwalkii iyo dhibaatadii ay igu batay dhahday oo waxaan gaaray tiri inaan codad inaan maqlo sharqan aan maqlo socod aan maqlo waxyaabo kale ii sawirmaan waxay tiri xanuunkayga waa sii ziyaaday marxaladaas markaa maraya waxay tiri qolkayga waa seexan waayay tiri keligayga waa joogi waayey oo waxay noqotay inaan hooyaday hoosteeda seexdo sidii cunug yaroo kale والله ما شاء الله هذه هو إذا بكون جوكتان يدك أنا هذه وقت جالس والله كورن هذه عدلك وقصة مرت أرين كاس وكله اللهم نجينا يا ربي أنت إسلام ومدنا محمد كردي أنت قبتني إله كسر حنون كعب سدا يولول كحنون كحنو ابن آدم كل عمله إله سبحانه وتعالى إذكم مريدو أنت هي سنة إله سبحانه وتعالى كقاضو كذب حال عذيد هذي أنا وحي ترساس حال كي ويهي تري وحير مركان أقرينا يو وحال عذيد هذي ولولكي إنو بحو cabsidii inay iga tagto sharqantii aan maqlaayay waxyaabo ii sawirmaayay inaan waayo waxaan dareemay tiri raaxa aanan dareemi karin qalbigayga dhagaxaanta ku taagneed in ilaahi subxaanahu watacaala ka qaado xanuunkii muuqaha iga hayayna oo maalinba maalinka ka dambeeya oo sii yaraado anigoon daawo isticmaalaynin waxay tiri waxaan dareemayay tiri raaxa nafsiya awal waxay tiri qofkii insaanka waa sax qofkii insaanka ah markii oo xanuun iyo xaalad ku dhacdo wuxuu u baahan yahay qof oo xanuunkaas uu uga sheekeeyo saanaan ah intaa dhiga haya maanta saan waaye waxyaabahaas uu u baahan yahay waxyaabaha ani xataa ugu marqaati furayo maanta waxaa ka mid ah gabadhaas waxay tiri markaan bilaaway tiri suuratul baqara waxaan dareemay tiri qof ibni aadana inaan u baahnanay tiri naax u sheego keliya bas ilaahay subxaanahu watacaala wax u sheeganay tiri إلهي صاحب لنقضي تري إلهي جعل هذي تري وحن دريما يتري بكل وقت إنه إلهي معي تري عن دريما يا الله أكبر waxay tiri dadkii iyo cawaadkii iyo calaalkii wixii dhan waa iska dhaafay tiri baryadaydii kalsoonideedu dhan ilaahay aan isugu geeyay tiri alxamdulillaah waxa iska le walaalayaal arrinkaas suuratul baqara aniga hadda wallahi alcadiim mararka qaar waxay igu soo dhacaysa xanuunka muruqa ka haayo dhakhtarka waa ina u tagtaa oo ugu sharaxdaa sidan والله نفتيدي ما وقلانيس وحن لا هاي ميا حنونك يقوح أو إله سبحانه وتعالى شرحاتنا يقما باهن إنها نقشيق ماشي اللي قهاي يا رب أذائي يعني سورة البقرة وحيابها معجزة أي كلها وحاوى إنسان كأي كاكافتو من يسائنا وح أشيقتد أو إلهي سبحانه وتعالى أي ست وسكو وحريسا أو وحي كبريسا إلهي لجركي سيكبريسا سورة البقرة اللهم كفينا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك الله أكبر اللهم آمين waxay tiri ibn aadinka oo inaan ka maarmaan dareemay waxaan dareemay tiri raaxo aan waxay tiri aan la qiyaasi karin waana run farxad iyo raaxo aadan qiyaasi karin qofka diiqa nafsiga oo sadriga uu haayo ciriiriga laabta ka dareemayo suuratul baqara calaykum suuratul baqara سورة البقرة وإناد أقرسان وإناد برتان وإناد كدداشان وإنا أسو أردان سورة البقرة ولا ليال وحي قاعدة هذا أقو وحاس لغشي كينا وحيابي أن أرقني وحاس كسي وين وحيابا آذن أقين إلهي سبحانه وتعالى وكاقا دفاعي وكاقا هاي اللهم لك الحمد إلهي سورة البقرة نوافج يا مهد إسكالي إلهي ولا لها مسلمين تأولا حوافجي أنا جنا إلهي إيمان كينا هنوسجو أو سورة البقرة إلهي سبحانه وتعالى هنوجو قنعيو أو هنوجا قاضو وحي نوجو دنبه أو لبعتها يشر يحي نوجو صعدهم قبل وحي ترى السنة مركزي أقرنا أي ترى سورة البقرة أو أنا جنا حالك يجسكو أذي ترى حنونك أعوي ولي جيبي يقوم دحين هذا وحي ترى أنا أقرنا أي ترى فرق يقول دحين بحيث مركر وأقرنا لكن ما أنت وحي ترى بين نية شفاء أو إنه إلهي يقول داوي وأقرنا وأنا الأمستراي أو وان كنت تدبراي هذا مركان أقرنايو بكل آية أمام حلا بكل صفحة ما يلقى كو استاغي سيدا جرتو سبحان الله أنيغا مركا أو حنون كان درن إيهاي وحاكمد إيهاد أيضا أن آت كوكو براروكو جري ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله أكبر
iyo aayadaha nabi ibraahim calayhi salaam iyo markii ay dhisaayeen waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti waismaaciilu rabbana taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim aayadahaasoo kale ka mid oo qalbiga aad iyo aad ilaahay iigu dejin jiray been maaha walaalayaal aniga waayihii hore waxaan ku aqrin jiray tadabburaan ku aqrin jiray suuratulbaqara laakiin waayahan muu ku aqri tadabbur oo waan boobsiiyaa boobsiiskaasna waxaa waaye waa laga qurux badan yahay waxaa fiican in si tartiil loo aqriyo la kala dhigdhigo oo lagu maaragtay lagu khushuuco ayaa aad iyo aad u wanaagsan khushuuca ilaahi subxana watacaala hana siiyo walaalahayga gabadhii waxay tiri walaalayaal waxaan idinkula wadaagayay tiri inaan aniga ii sheeg oo xanuunkaasi dhibaatadaasi soo martay dad muslimiin oo walaalahayga inay haayaan laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan calaykum suuratulbaqara waxay tiri wax walba okay ay kusoo noqdeen caafimaadkaysiisuu kusoo noqday xayaatadeydii sidii hore si ka fiican ay noqotay waxay tiri noloshayda adduunya aakhiran hadda bursadaa oo muddo sanad aha laga joogaayay tiri wixii keligayga inaan qolkayga seexdo inaan keligayga socdo ayaan ma aragtay ka dheefay sidaan hore idinkugu sheegayba cabsidii ilaahay wuu igaaga qaaday oo xorriyadu wuxuu igu siiyey oo nololeed ah inaan keligayga istaago keligayga seexdo keligayga socdo allahuma laka alxamdu marka walaalayaal qisadana meeshaan kusoo gabagabaynaynaa maanta insha allah waxaan rajaynaa inaad ka faa'iidaystaan muuqaalkan maanta wuxuu igu qaatay waqti aad iyo aad u dheer oo dhowr jeer uu iga halaaway cunugta igu uysay waa kacay waa rafaaday marna waxaanba arkayba anoo iska daldalmaayo oo maba duubmayninba marka waxaa waaye xaqa uu leeyahay maanta muuqaalka inaad siisaan idinka rajaynaa laygtiisa aad gaarsiisaan kumaan kun aad gaarsiisaan ood sheergaraysaan insha allah i dhiirigeliya walaalayaal oo haddaa idinka idin dhiirigelinin oo gacmaha i qabanin oo hore ii wadin aniga hore ma u soconayay marka waxaa idinka codsanaa inaad sheergaraysaan aad u sheergaraysaan dadka la wadaagtaan muuqaalkan si walaala fara badan oo dhibaatadan ay haysato ilaahay subxaanahu watacaala ay maaragtay intuu u gaaro oo ilaahay subxaanahu watacaala ugu naxariisto ilaahay waxaan ka baryaa ikhlaas inuu nooga dhigo camalkeena saqiirkiisa kabiirkiisa dembigeena iyo dembi waalidkeena allaha dhaafo waalidiinteena kuwii dhintay kuwa noolna allaha u naxariisto ilaahay subxaanahu watacaala qoysaska muslimiinta hanoo xifdiyo awlaadana allah hanoo xifdiyo diinteeni dalkeeni dowladnimadeenana ilaahay subxaanahu watacaala hanoo xifdiyo masaa'ibta waxaa waaye maa dahara minha wamaa batan ilaahay subxaanahu watacaala hanaga badbaadiyo walaalayaal ilaahayna ahlulqur'aan hanaga dhigo ilaahay ahlulqur'aan hanaga dhigo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu jeceliyo raalli ka yahay allahna waafajiyo alxamdu lilaahi calaa nicmati tatimu الصaalixaat صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.